magacaygu waa Xaliimo Suldaan Cali waxaan ka socdaa kaamka Shabeelle caruurta iyo dhalinyarada waxa ay xaq u leeyihiin in la difaaco number 1 waa in laga difaacaa ka faa'iideysiga caruurta sida waa inaan la oran waxa ku siinaya waxa ii soo qabo oo kale waa in duruufo ay qabaan ogood aan looga faa'iideysan iyadoo la eegayo duruufahaas caruurta ay qabaan darteed waxa kale muhiim ah caruurtu deegaanka ama environmentska ay wax ku baranayaan in uu yahay environments lagu talagalay in wax lagu bartay waxa arkaysaa marka qaarkood meel iskuul ku on suuq dhexdiisa in iskuulaadka ku yaalaan meel aan munaasab ahayn waxbarashadu in caruurtu u aadayeen marka caruurtu confuse badan iyo jahwareer badan iyo wax stress badan ba arinta iyada kaga qabsanaya sababtoo ah caruurtu markay wax baranayaan waxay u baahan yihiin jawi degan oo qurxoon in wax ku bartaan marka kuleeyahay caruurtu wax xaq u leeyihiin nololeed waxa ula jeedaa inay helaan nolol wanaagsan inay helaan cunto nafaqaysan sidoo kale inay helaan caafimaad sidoo kale inuu qofku heli karo magac iyo waliba dal ilmuhu inuu helo go'aamo noloshiisa naftiisa saameyn ku leh sida qoyskiisa go'aanka qofka ilmaha qoyskiisa waa inuu go'aanka ama fikradda ama afkaarta qayb ka yahay ilmaha inaan qoyskiisa la dhihin qoyskiiba ama odayga habarta baa go'aanka gaaraya aan qayb laga siin ilmaha in la dhageysan karo rabitaankiisa loo fiirin karo ilmihii qoyskiisa uu qayb ka ahaan karo in sida gabdhaha oo kale la dhaho la siiyo guur degdeg ah oo aysan gaarin in lagu qasbo oo kale in loo adeegsado la dhaho soo shaqeeyo oo kale in la dhaho wiilasha baalish ha qaateen oo ha soo shaqeeyeen la dhaho waxa noqonaysaa tacaddi waa in ilmaha laga ilaaliyaa waxyaalaha ku keenaya caburiska waxyaalahaasi waxay keeni karaan in ay ilmahaas ku keenaan biri ka maalin inuu noqdo qof maskaxdiisu aysan dhamaystirnayn caruurtu waa in loo fasaxaa ama loo ogolaado inay ciyaaraan sababta caruurtu ciyaartu waxay ka helayaan nashaad badan waxay ka helayaan firfircooni badan waxay ka helayaan activity badan caruurtu u awoodaan jirkooda inuu isfurfuro wax badan xasuustaan wax badan awoodaan ilaan ciyaartu waa qayb kamid ah hab koriinka ama hab nololeedka caruurta waa in la baraa ilmaha inuu soo gudbin karo wax walba ee isagu uu dareemayo si uu u soo gudbiyo waxa asaga markaa la soo gudboonaaday taasna waxay ku imaan kartaa ilmahaas inay waalidku soo dhaweeyaan la saaxiibaan la noqdaan qof ayaga agtooda qiimo ka leh isaguna uu dareemo in waalidkii wax walba uu u baahan yahay oo markaas noqon kara wax suurtagal in ay u sameyn karaan xuquuqda caruurtu leedahay waxyaalaha ay dawladdu ka qabato meelaha iskoolaadkaas waxaan la soconaa mar walba u sameynaa wacyigelin dheeraad ah inaan u tagno dhalinyarta wacyigelino caruurta wacyigelino waxyaalaha horumarkooda uga sheekeyno waxyaalaha ay amniga uga sheekeyno waxyaalaha ay xaq u leeyihiin uga sheekeyno iyo waxyaalihii aan ku saaciidi karnaba haddii ay jirto ilmo aysan markaa dhici karin inaysan waalidkooda gacanta ku hayn dadkaasi waa inay dareensiiyaan ilmahan qofka gacanta ku haya inuu yahay waalidkiisa oo kale oo markaas uu samayn karo in uu la dhaqmi karo sida isagu ilmo uu dhalay oo kale